الرحيم والسلام يا لمان شعبي غير سوماليلاند waxaa ka warqabteen in khamiistii soo maray suuqa si aan ugu kuur galo heerka nolosha iyo maciishada dadka shacabka gaar ahaanna dibta uu ku hayo sicir bararku marka maanta hadalkaygu wuxuu ku kooban yahay kaliya sicir bararka Somaliland maanta waxa ka jira duruufo dhaqaale oo aad u adag shaqalaan baahsan ayaa aafaysay dhalinyaradeenii waayeelkii iyo hooyooyinkii ma haystaan daryeel caafimaad iyo mid kale toona tiyo ay sidaas tahay ayaa sicir barar baan oo naxariista ka fogi maalin kasta shacbiga ku sii kordhaya intii xukuumadii kala dambeeyay ee xisbiga ku kulmay hayeen talada dalka waxa qiimaha shilinka Somaliland hoos u dhacay in ku dhow boqolkiiba 50 waxa ay andara in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ay la foofdaran habawday xal u helidii arrimaha dhaqaalaha iyo gaar ahaan sicir bararka muddadii xilka hayay madaxweynuhu sicir bararkii uu sii kordhay ha joogto in wax laga qabto waxaad ka warqabtaan guddi madaxweynuhu u saaray xal u raadinta sicir bararka laakiin xukuumaddii meel qaldan ayay ka doontay waxaana caddaatay in guddigaasi ku fashilmay xal u helidda sicir bararka madaxweyne Muuse Biixi wuxuu madaxweyne u yahay shacbiga Somaliland oo dhan tiradiisu inta yara lagu qiyaasay 3 milyan iyo badh oo ku jira duruufo adag oo dhaqaale oo la il daran nolol adag su'aashu waxa weeye madaxweynuhu shacbiga ku jira duruufta qalafsan ma dareemaya mase ka warqaba haddii uu ka warqabo ma dareemaya say u suurto gashay inuu kororsado miisaaniyadda madaxtooyada sanadkan boqolkiiba 100 waliba ayaa la kordhiyay miisaaniyadda madaxtooyada waxa arintaasi lagu kordhiyay miisaaniyadda madaxtooyada in wax laga qabto oo lagu la tacaalo sicir bararka maalin kasta walaalayaal waxaan la kulmaa oo la wadaaga sheekooyin qaar ka mid ah shacbiga reer Somaliland oo la daalaa dhacaya duruufaha dhaqaale ee sicir bararku saameeyay waxaan khamiistii 26kii bishii afraad soo maray qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa si aad ka warqabtaan ee aad kala socoteen qalabka warbaahinta dadkii aan waraystay waxa ka mid ahaa hooyo Aamina Axmed Cige oo 45 jir ah oo haysata 8 carruur ah oo degan xaafadda 150ka odaygeeduna yahay askari jooga aaga bari difaaciisa hore waxay hooyadaasi ii sheegtay inay mushahar u qaataan lacag ka yar 850,000 oo shilinka Somaliland ah lacagtan oo 2 sano ka hor u dhigmaysay $121 maantana u dhiganta $80 waxay ii sheegtay inay ku jirto guri kiraa laga sugayo lacag mulcaamadeed mid caafimaad lana tacaalayso dhammaan noloshii kala duwaneed ee qoyska hooyadani waxay ku nooshahay warwar waxaanay la wadaagtaa 100,000 oo hooyo oo reer Somaliland ah waxaan baaqday dukaan raashinka tafaariiqda iibiya oo ku yaal xaafadda Axmed Dhagax wuxuu ii sheegay in sicir bararku aad u saameeyay nolosha dadka wuxuu igu yiri sicir bararka waxa sii kordhiyay oo sii xumeeyay in dhawaan xukuumaddu 40% ay ku dartay cashuurta raashinka iyo badeecadaha taasoo ganacsatada dul saareen masaakiinta shacbiga ah wuxuu ii sheegay in 10 qof wax ka iibsan jiray maanta 7 ka mid markay ascaarta eegaan iyo qiimaha ku kordhay ay ka noqdaan
oo saddex quri ay awoodaan inay wax ka iibsadaan. dukaanlahani wuxuu ii sheegay in haba yaraatee go'aamadii guddiga madaxweynuhu u saaray xal u helidda sicir bararka aanay waxba ka tarin ee sicir bararkii uu kor u sii kacay. wuxuu kaloo ii sheegay inaanay wax saameyn haba yaraatee yeelan joojintii la joojiyey isticmaalkooda saadka iyo dahabka oo aan iyaguna la xaqiijiyey inaanay wax raad la lahayn ama saameyn ku lahayn sicir bararka. waxaan booqday suuqa weyn ee sarifka waxaan ka bedeshay $100 waxa la igu bedelay $1,040,000. waxaad ka warqabtaan banka dhexe Soomaaliland inuu subax kasta soo saaro raydka sarifka hase yeeshee way kala duwan yihiin tii la igu sarifay iyo tabanku soo saaro. waxaan weydiiyay gudoomiyaha sariflayaasha oo in maxaa ugu dhaqmi weydeen raydka uu soo saaro banka dhexe. wuxuu yiri wali waa tijaabo. taasi waxayna tusaysaa inaan wali aanu hirgelin raydka uu soo saaro banka dhexe. taasina ay u baahan tahay in si dhaba loo eego raydka dhabta ee hirgeli kara haddii alla ka dhigo. mid ka mid ah sariflayaasha wuxuu ii sheegay in xilligii udub marka uu kaco shilinku ama doolarku uu banka dhexe marna doolar u keeni jiray sariflayaasha marna shilin badan soo deyn jiray oo xakameyn jiray. hase yeeshee intii dawladda kulmi yimaadeen arrintaasi marna ma suurtoobin. mid ka mid ah sariflayaasha wuxuu ii sheegay in shilinku hoos u dhici lahaa haddii aanay xukuumaddu ku darin taariifada 40% raashinka iyo badeecadaha kale. sariflayaashu waxay ii sheegeen markaan ka waraystay sababta uu degi leeyahay sicir bararku iyo shilinku mid labaduba waxay ii sheegeen inaanay weli dhaqan gelin in lagu bixiyo shilinka Soomaaliland kirooyinka iskuulada dhakhaatiirta laydka iyo xitaa qaybo ka mid ah cashuurta xukuumadda. waxaan booqday suuqa hilibka iyo qudaarta. qiimaha hilibka waxa uu marayaa qiimo in yaro farakutirisi ay awoodo inay iibsato hilib maanta. waxay ii sheegeen in kiiloogu marayo 40,000 shilin ama ka badan. sababta markaan weydiiyey waxay ii sheegeen in neefka adhigi maanta marayo 1 milyan ka badan, neefka geelina 10 milyan ka badan. mid ka mid ah dukaamada iibiya basasha iyo baradhada iyo wax la mid ah oo gabadhi haysatay waxay ii sheegtay inay doolar ku soo iibsato dhammaan alaabtaas basasha iyo baradhada kuna iibso shilin Soomaaliland marka dambana laga rabo inay doolar ku soo iibsato. waxay ii sheegtay inay khasaarto item kasta ama shay kasta 1,000 shilin oo Soomaaliland isku bedelka lacagta awgeed. aan isdul taago sicir bararka marka laga yimaado inuu taabtay nolosha qof kasta oo reer Soomaaliland ah wuxuu gaar u sii taabtay inta tamarta yar ay ugu horeeyaan ciidamada qaranka, booliiska, macallimiinta, muruqmaalka, ganacsatada yaryar iyo dadka caadiga ah iyo reer baadiyaha. waxa yaan daraa in madaxweyne Muuse gacmaha ka laabtay oo aad moodo inuu ka rajo dhigay inuu wax ka qaban karo sicir bararka. guddigii uu magacaabay maynan adag. waxaan xukuumadda u soo jeedinaynaa in haddii ay talooyinkii ay xalka u arkeen waxba ka bedeli waayeen sicir bararka aanay madaxa ciidda gashan ee ay la yimaadaan tallaabooyin cusub oo mashkiladan wax lagaga qabanayo. xalinta sicir bararku wuxuu u baahan yahay qorshe aqoon saldhig looga dhigay. lamana gaari karo xal haddii aan marka hore si qoto dheer loo fahmin sababaha sicir bararka dhaliya. waxaan halkan ku soo bandhigaynaa qaar ka mid ah sababaha sicir bararka. mashkiladda koowaad waa sarif bararka. waxa saldhig u ah oo qof kasta fahmaya waa dhibaato ka taagan lacagta suuqa soo gasha ee la yiraahdo supply afka qalaad iyo lacagta suuqa u baahan yahay oo aan isu miisaanayn. walaalayaal waxay istaagay ishii ugu muhiimsanayd
ee lacagta adag inaga soo geli jirtay oo ahayd xoolaha waxa qaranqiir ku jirta lacagtii qurba jooga soo diri jiray oo xawaaladihii culays weyn ayaa dunidu saartay maanta xukuumadaha kulmiyana weligood arrintaa kama hadal waxa taadkaatay in dadka lacag adag lagu soo celiyo qofka badeecada dibadda u dhoofiya maadaama ay adag tahay meeshii uu soo marin lahaa iyadoo ay yar tahay doolarkii ina soo gelayay ayaa baahidii loo qabay doolarkana ay korodhay maxaa kordhiyey waxaa ka mid ah xitaa sida raflayaashu ii sheegeen DB World waxay adeega ku qaadataa Somaliland shillings habeenkiina waxay ku bedelataa doolar sidoo kale qaadka oo dadka inta badan cunto isna waxa lagu iibiyaa Somaliland shilling habeenkiina waxa lagu bedelaa doolar lacag ka badan 200,000 qaarna nus milyan baa ku qiyaasan habeenkii labadaas oo qurma ka soo qaadanaya waxay ahayd in xukuumaddu labada ganacsiyaasha qaadka iyo DB World sida la sheegayo midna account kuma leh banka dawladda marka waxay ahayd in xukuumaddu ku dhiiri geliso in lacagta Somaliland ay dhigtaan oo ay adeegsadaan banka ama xisaab ka furtaan banka waxa kale oo caado noqotay in lacag la iska soo daabaco tiyo aan siyaasad loo raacin sanadka miisaaniyadeedka xitaa waxa ku jirta lacag badan oo la soo daabacayo taasaanu ka digayno cawaaqib xumada dhaqaale ee ka iman karta waxa cad in xukuumadii kala dambeeyay ku fashilmeen wax ka qabashada sicir bararka waxaana sabab u ahaa ma jiro bangi dhexe oo siyaasadda lacagta fahamsan waxaana curyaamiyay xukuumadii kulmiye ee kala dambeeyay oo awoodiisii meel kale u leexiyay ma jiro sharci lacageed monetary law iyo siyaasad lacageed oo qeexan oo lagu maamulo lacagta dalkeena xukuumadda kulmiye ma oga dhaqdhaqaaqa lacageed ee suuqa sida lacagta soo gasha ka baxda ama ta suuq u baahan yahay musuqmaasuq baahay ee xukuumadii kulmiye wuxuu sababay u noqday in mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadii kulmiye ay lacag badan oo doolar ah dalka ka saaraan gaariye wuxuu yiri nin daaweele leeyahay dambi uu bad leeyahay xalka doon la leeyahay isagay u darantoo in la daaro ma ogola deebaaqda milil kale gabay kale oo baasho gabay ay yiri oo sicir barar ku saabsan oo iga maqan yahay mararka dambe soo qaadan doona hadii la ka dhigo si xal loogu helo sicir bararka loona kobciyo dhaqaalaha dalka waxa xukuumadda kulmiye u soo jeedinaynaa inay samayso siyaasado cadcad oo gundhig u noqda wax ka qabashada mushkiladaha dhaqaalaha kuwaas ay ugu muhiimsan yihiin siyaasadda maamulka lacagta monetary policy ay la timaado xukuumadda laba siyaasadda dhaqaalaha iyo miisaaniyadda fiscal policy siyaasadda daafurnaanta maamulka lacagta public financial management sanad ka hor xukuumadii kulmiye waxay noo sheegeen inaynu ka mid noqonnay iyadoo aanay sharci ahayn oo la sharciyeynin xulafada dawladda Sacuudiga suuqeena ugu weyn waxa Sacuudiga inaynu xulafada ka mid noqonnay xitaa waxay noo jari weyday in xoolaheennii naylo furo iyadoo sanad ka hor ay ahayd haddana maalintii dhaweyd madaxweyne Muuse markuu tagay Imaaraadka wuxuu xoolo wala furaya xoolo la furay miyaa maqasheen waxaan leenahay haddana waxba noo jarin xulafadu maxaynu ugu jireynaa xukuumadda waxa ku waajiba
haddii dee rumoobi weydey xulafanimadii waxay noo jarto in xoolaha nool oo ahaa kaynoo keena lacagta adaga ugu badan dalka ay xal loo raadiyo oo suuqyo kale loo raadiyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدب ما تنتهي.